horeyntii haweenka meesha fadhiya meesha soo buuxiyey waxay xusuusinaysaa waxyaabihii aan maqli jirin maxaa yeelay gumaysigii markii lala diriraayo kuwii naftooda iyo maalkooda ku horeeyay ee bixiya waxay ahayn haweenkay ahayn maantana tusaalay noo tahay waxaa kaloo sharaf weyn ah inaan maanta maaragtay aan maqaati ka noqonno oo aan halkaan joogno Galkacyo oo hal meel ugu dabaaldegayo taasina waxaynu ku soo beegantay maalin midnimo iyo ku soo beegantay laanna 1Da Luulyo waa maalin midnimo waa maalin la dagaalan gumaysi maalin xorriyaddu way waxaan aad u tixraacaa xildhibaan faqigii uu yiri uu sheegay yaan la wadaagaa iyo gabadhii meesha ka hadashay waxaan la wadaagaa caatifada laftirkeeda waa in gashay oo maxaa yeelay marka aan arkay midnima wax lagu dabaaldega iyo maalintan waxay noo tahay qiimay tahay maxaa yeelay waxaan jeclahay inaan idin sheego taariikhdu raggaa sameeya rag markaan leeyahay rag iyo haween wa taariikhdu waa duqowdaa waa xanuunsataa waa jirataa waa dhimataa haddii aan la daryeelin idinka waxaa idin yeeray wanaagaa idin yeeray laakiin maanta markii laga wada hadlaayo colaad iyo idinkaa la saabaalina horta dadka inay kala duwanaadaan wada noolaanshahanna waxaa wax weyn wey anigu waxaan ka imid gobolka banaadir aan ka imid gobolka banaadir dadka ku nool isku qabiil ma aha hal meel kama wada imaanin waxaa waye dad isu yimid xadaarad dhistay ilbaxnimo dhistay noloshaas meesha gaartani maxaan ku dhahda gaaray waxaa waaye dad haddii uu tashto meel kasuu gaari karaa ma aha meeshan in webi ma laha iyo bad ma laha meesha ma taagna badda waxbaa ku leedihiin webiga waxbaa ku leedihiin beeraha waxbaa ku leedihiin xildhibaan faqi intuu sheegay aniga laba shay aan ku darsana isticmaalka run way waana qaybiyey 5 qayboodoo naga dhigay laakiin hal shay laba shay oo aad muhiim ah yuusan nublagdi wayna waxba naga qaadin waayo waxaa waaye diinteenna waa nugu qaybin waayo afkeennina waa nugu qaybin waayo markaan diinta leenahay u fiirsada wadamada adduunka shisheeya ku hataa jaarka nala ah waxaad arkaysaan diiman badan bay leeyihiin waxay leeyihiin diiman badan macbud badan bay leeyihiin annaga isticmaalka wax kasta uu sameeyey waa diinta muslim waa naga saari waay diinteen mid hal diinan lenahay midda kale afkeena iyo dhaqankeena waa burburin waay u fiirsada afrikaanka dhinaceeda degan kulligooda afafka la gaaray ku hadlaan mana is afiiqanin marka annaga hadda intaas ku midoobi weyn weligeena midooben ilaahay inta wax uu nuu daadafiyey aniga hadda gobolka banaadir aan ka imid cidna uma baahnin soomaaliya meel cirif ilaa cirif inay cid iga turjunto saas maaha midiyaan oolba ay iga baahantiin marka waxaa waaye taasaa waxay tahay sharaf aad iyo aad maaragtay weyn iyo qiimo ilaahay uuna siiyey marka maanta waxaa waaye anigu waa qiiraysanahay qiiradeena waxay ku dhajgarsan tahay waxaan meesha ku arkaya Galkacyo waa mid shacabkeedana waa mid soomaaliyana waxaa waaye mid waaye shacabkeedana waa mid annaga ilaa iyo maanta waxna la daba taagay isticmaalku wuxuu daba taagan yahay wax kale maaha inuuna qeybi waayo annaga markii aan noqon waay 59 sano ka hor dalkan sida lagu soo xuray lagu xuray lagu xuray yaana leegada badoodu horay wuxuu ahaa midnimadaas dalkan lagu xuray aniga waxaan ay jiilkii ka faa'iideystay xornimadaas weligay ma arkin iskool aan lacag ka bixiyo ma arkin dhakhtar maxaan ku helay cisbitaal aan lacag ka bixiyo ma arkin wax walba wanaagi waxbarashaan helay dibadda dalka meel walba marka taas waxay tusinaysaa waxa way baahiyaa u qabaa caruurteeda taasoo kale ay helaan rabo taasna waxay ku heli karaan Soomaaliya waa mid Soomaaliya qaybsan ku heli karaan si kastoo la yiraahdo allay garalla hada federaalka kii moodan buu leeyahay haddii si wanaag loo lak haddoo noqdo moor qabiil haddoo noqdo waxba ma keenay horumar ma keenayo meel laguma aaday annaga waxaan rabnaa maxaan ku helaa federaal oo aan moor qabiil ahayn waxaan rabnaa federaal oo ummadan maaragtay soo mideynaayo oo gobol walba horumarkiisa maaragtay soo maamulka hoos loo daadejina yaan rabnaa marka waxaa waaye dhalinyarada iyo haweenka idinkaa mar walba waxaa ahaan jirta hooseedkii ahaan jirteen civil society-ga doorka horumar wuu ku leeyahay adduunku waxay isu midaystaan qabiil ma ahe
ماشي قبل كني سوق تقوم هرمريسو رجال كعيو وحين الله يهدك سودوية هذا هو نوراه معايا مذكرتهم مقالة هرمرتين مجلسوا وذكر كني يكون الجن مقدشة أركيسان بنادك أركيسان وحيكو هرمرتين على ربها ما في كردون ومال بلكين يكو هرمرتين تاسا يكو جرتا يكو يالتي جامعة يكو يالتي تكتا يكو يالتي airport ay ku yeelatay idinkana waxa la idinka rabaa dadka idin imaanayo inaad soo dhaweysaan Soomaali dadkeeda la marqara laha Soomaali waxa weeye mid waxa weeye hanoo celin istimaarka oo hore وما سنتي ركع يبشر وديار نفسك حطونه وإذا سلام دمانتي وما أحسن